kulankan oo lagaga hadlayo qurba joogga iyo doorka ay ka ciyaari karaan shaqo u helista dhalinyarada baratay xirfadaha kala duwan ayaa lagu qabtay hotel barwaaq ee magaalada Burco. kulankan ay soo qaban qaabisay hay'adda Candlelight ayaa waxa ka soo qayb galay madaxda hay'adaasi iyo waliba qurba joogga iyaga xafladani loo qabtay. ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay Marwa Jawaahir oo kamid ah madaxda hay'adda Candlelight, faahfaahin ka bixisay hay'adan iyo waxa ay ku taxalluqdo. Marwa Jawaahir ayaa ku dheeraatay maraaxishii ay u soo mareen sidii aqoonta dhalinyarada gobolka kor ugu qaadi lahaayeen iyo sida ay waliba ilaa hadda ugu hawlan yihiin. Xasan Xuseen Faarax oo isna kamid ah madaxda hay'adda Candlelight ayaa sheegay in ujeedada ugu weyn ay qurba joogga isugu yeedhan tahay sidii dhalinyarada wax baratay shaqo abuuris loogu sameyn lahaa iyadoo la iska kaashanayo ayuu yiri qurba joog iyo dal joogba, maadaama uu yiri aad ka timaadeen wadamo horumaray macquul ay tahay inaad wax badan nagu soo kordhin kartaan oo dhanka shaqo abuurista ah, waxna aad ka tari kartaan shaqo la'aanta baahsan ee dhalinyarta haysata. sidoo kale Xasan Daacad oo maamulaha dugsiga VTC Candlelight ayaa ka warbixiyay ardayda ay wax baraan iyo sida ay mar walba uga go'an tahay sidii ay u soo saari lahaayeen arday aqoon kala duwan leh iyo waliba mid xirfadeed oo marka ay dhameystaan ay si fudud u heli karaan shaqooyin kala duwan. maamulaha ayaa qurba joogga reer Togdheer u soo jeediyay in ay xil iska saaraan sidii ay shaqo abuuris noogula sameyn lahaayeen ayuu yiri ardayda wax baratay, maadaama uu laga yaabo in wadamada aad ka timaadeen aad si sahlan uga heli kartaan mashaariic horumarineed oo da'yartuna shaqo ka heli karto. ugu dambeyntii waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno kamid ah qurba joogii kulankani ka soo qayb galay soona dhaweeyay kulankani kuna tilmaamay in loo baahan yahay kulamada noocan oo kale ah ee lagaga wada xaajoonayo horumarinta iyo shaqo u helidda dhalinyarta aqoonta leh ee wax baratay, waxaana ay sheegeen in ay ku dadaali doonaan sidii ay doorkooda uga qaadan lahaayeen shaqo abuurista dhalinyarada aqoonta leh. kulankan oo noqonaya kii ugu horeeyay noociisa oo kale ah ee lagu qabto xarunta gobolka Togdheer ee magaalada Burco, lagagana hadlayay sidii shaqo abuuris loogu heli lahaa dhalinyarta wax baratay si ay uga badbaadaan aafooyinka daran ee dalka ku soo badanaya kowna ay ka tahay tahriibku ayaa wax weyn ka tari doona horumarka dhalinyarta gobolka haddii ay noqoto mid tabagal ah oo si wada jir ah ay isaga kaashadaan dadka aqoonta leh qurba joog iyo dal joogba. Maxamed Tiriik.